abaalgud waxa la arkay haba dheeraatee cid kuu gudaya. waa sheeko aad u xiiso leh. nooluhuna sidiisaba xayawaan aadame iyo wax kastoo nafi ku jirto ma ilaabo qofka markii uu baahnaa uu garab taray ama se caawiyey. waa kii abwaan ismaaciil jiheeye lahaa dadka qofkii wax kugu tara daacad kugu hagarbaxa kaga doono meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi hadduu diido waayuhu noqo ruux ku daynbaxa dibnahiyo afkiisoo ducaa ugu abaalguda. inkastoo sheekada ay ka duwan tahay bilaadan abaal u galay oo u gudaya laakiinse ayn soo qaadano. kalkaalisadii sawirkan qaaday waxay tidhi bukaankan wuxuu isbitaalka yimi 3 maalmood ka hor lamana arag hal qof oo qaraabadiisa u yimi si uu soo booqto ama u daryeelo. waxa ogaatay in shimbir xamaama ay maalin kasta ama 2 maalmoodba mar un timaado odayga iyadoo si degan ugu degtay sariirta ninkan odayga ah xanuunsanaya uu jiifo. waxa kaloo ay tidhi markii dambe shaqaalaha isbitaalku waa ay baadheen sababta waxaanay heleen jawaabta. odaygan wuxuu maalin kasta shimbirtani ku quudan jiray kursiga uu ku fadhiisto beer u dhow isbitaalka. hadda xilligan ugu baahida badnaa naxariista shimbirtani ayaa ku soo noqotay xasuus darteed daacadnimo darteed iyo jacayl darteed. mararka qaar xayawaanku waxay muujiyaan naxariis mahadnaq ka badan tan aynu bini'aadanka u samayno. sheekadani waxaa qortay mid ka mid ah kalkaalisooyinkii caawinaya odaygani bukaanka. daawade adigana maxaa ay kula tahay uma kula tahay in xayawaanku uu noqon karo noola nafla kaasi uu u abaalgudi kara amase xasuusnaan karo ogaan karaya qofkii wax taray xilligii u baahnaa. si ay taasi haddaba aynu xaqiiqsano waxaynu ka dheehan karaynaa mawduucan kooban ee sheekadani ay ku saabsan tahay. waad ku mahadsantihiin dhammaantiin ku xidhnaanshaha barteeda youtube iyo nairobi iga fisha warar cusub waxyaalo hor leh iyo sheekooyin aad u xiiso badan. mahadsanidin.